بسم الله الرحمن الرحيم مقعيقو وعبدمالك محمد أسكار cajaladdan haddii allah wadalo ogolaado waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa heshiiska dhexmaray ururka ONLF iyo wadanka Ethiopia waxaana cajaladdan idin diyaariyay Somalia Media waa Abdimalik Maxamed Askar Sakriya Aadan iyo Cabdiaar indhowey toolaba waxaa la waday ama la maqlayayba inay soo ifbaxayaan heshiisyo dhexmaray wadanka Ethiopia iyo ururka ONLF heshiisyadaasi ayaa waxa ay ka soo bilowdeen markii ugu horeysay oo Ethiopia iyo ururka ONLF ay face to face isku hor fadhiistaan wadanka Holland gaar ahaan magaalada Amsterdam halkaasi oo ka bacdina ay ku ballameen inay shir labaad iskugu yimaadaan Mareykanka gaar ahaan caasimadda Mareykanka ee Washington DC shirkaasi ay iskugu yimaadeen Washington DC ayaa markii ugu dambeysay ay isla afgarteen in ay qodobadaasi ay ku soo gunaanadaan ay isku afgarteen labada dhinac qodobadii halkaasi ay isku afgarteen ayaa waxay u ballameen inay ku saxeexaan bartamaha magaalada Ethiopia gaar ahaan caasimadda Addis Ababa haddaba boqolaal qofood oo taageersana ururka ONLF uu horkacayo gudoomiyaha ururka Engineer Saalaxdiin Cabdiraxmaan Macu ayaa u kicitimay Addis Ababa bishan taariikhdu markay ahayd 12 September 2010 halkaasi ayaa wafdi ballaaran waxa loogu soo dhaweeyay gagada dayuuradaha ee magaalada Addis Ababa waftigaasi oo ka kala yimid qaaradaha adduunka iyo waliba qaar ku jiray gudaha ayaa waxa lagu ballansanaa in heshiiskan laga soo afjaro kadib markii Addis Ababa la iskugu yimid ayaa ururka ONLF halkaasi shir lagu soo dhaweynayay lagu qabtay magaalada Addis Ababa hotelka weyn ee lagu magacaabo Guyan heshiiska hotelkaasi ayaa waxa ku soo dhaweeyay wafti ka soconaya dhinaca kilka oo horkacay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaalida mudane Cabdi Cumar sidoo kale waxa socday gudoomiyaha xisbiga Cabdi Fataax waxa kale oo halkaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiin aad u tiro badan oo ka socday dhinaca federaalka haddaba intii aanan u kicitimin wadanka Ethiopia ayaa waftigii ka socday gaar ahaan dhinaca Mareykanka oo ka koobnaa ilaa iyo 27 qofood oo iskugu yimid airportka Washington DC gaar ahaan airportka lagu magacaabo Dallas Airport ayaan haddaba wax ka weydiinay markii aanu la kulanay dadkii taageersanaa ururka ONLF erayadoodii haddaba dadkii aanu su'aalaha weydiinay waxa ka mid ahaa sida tan magacayga waxa la dhahaa shiracadka boos shira maanta xagee socota waxaan socdaa wadanka Ethiopia Addis Ababa sababta waa samayn ayaa aniga oo ka mid ah ururka ONLF heshiiska aan ku kala saxanay anaga iyo Ethiopia dalka Addis Ababa goorma ku dambeysay wadanka ilaa iyo maana arkin 40 sano maxaad filaysaa jawiga maanta markaad tagto waxaan filayaa wanaag iyo guul inay wax walba noogu dhammaan doonaan oo aan maartay si fiican wax lagu hagaagi doonaan xasan maxamed baa la yiraahdaa magacayga xasan magaalada ka timid xasan waxaan ka imid magaalada San Diego gobolka State California gobolka magaalada San Diego sababta oo aad Ethiopia maxay sababtan oo aad Ethiopia waxay tahay waxaan ahay xubnihii ONLF-ta nabadda qaatay marka waxaan aadayaa shirka nabadda oonu doonaynaa inaanu shacabka gudaha jooga u sheegna xaqiiqda dhabta ee ka jirta wadanka goorma ku dambeysay Ethiopia waxay u dambeysay 1991 waqti maxaad filaysaa markaad waxaan filayaa sida ay dawladda federaalka Ethiopia iyo madaxda jabhadda ONLF iyo dawladda ismaamulka Soomaalidu ku baaqanaya shacabka shucuurta ka muuqata aan ku aragnayba nabad waarta oo si wanaagsan loo wada qaato oo loo dhameystiro magacayga waa ardash ku sifdeeday arda sababta Ethiopia aad soo maay Ethiopia waxaanu aadaynaa waxa dhacday dawladda Ethiopia heshiis baa jira wadanka waxa weeye waxa jira heshiis la kala saxeexday oo marka heshiiskaas inaan maartay hawshiisii iyo shir iyo dadkii ayaa mas'uul goorma ku dambeysay Ethiopia waxay ugu dambeysay والله وقت فوق يقول دمس وحي يقول دمس 68 كيلومتر حافلة سامرك وحافلة يا وحفي عم وحافلة يا رجف عم كلنا هاي ضد كنا أنا ونبض بعوضنا نبض أيام هرس يدينا ضد كنا إن نبض وين نلقاته أنت ضمان إن نلقاته قال لي هذا عمي صوت Ethiopia وهذا سمعتها Ethiopia waxaanu aadnaa shirkadda ciido halkaas oo dadka lagu heshiisiinayo dawladda Ethiopia galanka sharaad
iyo jabhadda ONLF intaas lagu heshiisiinayaan doonayna inaanu ka qayb galno naga casuno goorma kugu dambeysay Itoobiya waa yaraa marka aniga igu dambeysay oo Soomaaliya markii dhalatay baan xagga u dambeysay raacday maxaa filaysaa markaad tagtay Itoobiya ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa aad iyo aad waxaanu uga rajaynaynaa inuu ilaahay nabad waasaca inuu waddanka ku soo rogo oo aanu aad iyo aad aan intaan uga shaqayno aanu ku guulaysanaan rajaynaynaa boqolkiiba boqol aaba Abdimalik baa la yiraahdaa Abdimalik sababta waa Itoobiya maxay tahay maanta Itoobiya waxaa ka jira dhib baa ka jira dadkanagii oo dhibaatada badan soo maray iyo rafaadka guul aanu kol gaadhnay oo Itoobiya wax la qaybsanay helayna calankii aanu u dagaalamaynay isaga oo haddii sabab aanu heli karo haddana si inaanu ka gudubno oo ayahanaga ka talinana nala ogol yahay yaanu arrintaas u garan weynay tii inaanu dib ugu noqonno oo hadda ka talinno oo xuduud baan leenahay calan baan leenahay ummad baan leenahay aynu sharaftooda iyo karaamadooda soo celinno ayaanu u soconnaa taasaanu u tegaynaa haddii la yidhaahdo goorma ayaa kugu dambeysay Itoobiya Itoobiya waxay ugu dambeysay 2003 waan gartay maxaad filaysaa hadda markaad waxaan filahayaa waxyaalaha isku dhaca ah ee dadka walaalaha ka dhaxeeya ee ciidamada isku dadka ah iska hor yimid ee is afgaran waaga laga dhax tuuray in aanu is afgaran aanu ka samayno arrintaasuna sidaa ay ku dhammaato ONLF ay shaqadeedii qabsatay iyo hawlaheedii awal hore ka beer daroobayna ay dib ugu soo noqotay dibna waddanka ugu taliso taasaanu ku talagelaynaa annagu waxaa la yidhahdaa Cabdirashiid Maxamed Cali Cabdirashiid sababta Itoobiya waa sabab maxay walaalaha Itoobiya waxaan u aadayaa mataqaanaa in barnaamijka nabadda ee hadda socda in aanu xoojino oo aanu ka qayb galno goorma kugu dambeysay Itoobiya walaalaha Itoobiya waxay ugu dambeysay 1984 حافلة توبي مركز كلي وحن فيلا متقنا إنه يسبدل بدن كده عينتي يقدم بيس خاصة لبدي السنة أما 7 سنوات يقدم بيه وحد مدة حاجة يسبدل الصعداء أو برنامج كنبض ولا حوجنيه مركا وحن كتلقى لنا البرنامج كاس أنا كقيب قال له أو أنا حوجنه فاضل علي إبراهيم فاضل صوت توبي هذا سوامح توبي وحنو هذا يا ما أدرك سايي تذكرنا قطيع عن معرفة Cajaladda يحسوق الله هيو إن معرفة النبض وهرسيدنا أو النبض عن قاضنا الدنيا ده وحوي قلم بالغو قاطع النبض معرفة إن دجال لوجرو معرفة ما فينا معرفة وقت الدير وأنا قبض على ننبه دجال لوجرا وحوا وطن كالحرين اللي هي مركه وحوي نبديد كونوا النبض قاطع كل كيسي هو يوصل نقضاء وما أدرك تايي عن لهشينو دولة إثيوبيا ayaan rabnaa dadka badankii way qaateen nabadda inta diidana inay soo gasho oo dhulkoodii hooyo u soo noqdaan oo nabadda qaataan baan rabnaa warma kugu dambeysay Itoobiya waxa iigu dambeysay 77kii waa gartay maxaad filaysaa markaad tagto waxaan filayaa ma aragtayay anigoo aad ugu faraxsan ma aragtayay shirkan ballaaran ee hadda la qabanayo iyo waftigan ballaaran ee ku soconno haddana waxaan filayaa inay nabad ka dhacdo oo farxad iyo ma aragtay wax aad aan ugu farxno inuu ka dhaco dalkii hooyo هذا أحمد مرسل صوت waa Itoobiya maxay tahay waxaan u aadaynaa go'aankii lagu heshiiyay ee ahaa in nabadgelyo ay ka dhalato ONLF iyo Itoobiya heshiiskii lagu wada hadlay saxiixiisii iyo shirweynihii ururka ONLF iyo taageero buuxda in aanu geyno dalka Itoobiya goorma ku dambeysay Itoobiya xilli hore ayaa igu dambeysay oo colaad dheer ay naga dhaxaysay colaadii waxaan ku bedelay nabad maxaad filaysaa markaas Itoobiya waxaan filayaa heshiis midho dhala oo runtii dagaalkii dheeraa ee ummadda Soomaaliyeed ee kilalku ay soo mareen lagu bedeli doono waxbarasho iyo nabad buuxda iyo mashaariicyo kala duwan iyo dadka oo aayihiisa ka taliya xagga waxbarashada caafimaadka intaba
وهاجاga dii aan dala daawateen su'aalihii aanu airportka ku weydiinay dalas dadkaasi oo in badan ay ugu dambeysay wadanka Ethiopia haatana himiladooda iyo hamigoodaba uu aad u kacsan yahay ayaa waxay soo gaareen magaalada Addis Ababa hoteelka lagu magacaabo Guyona ayaa lagu dajiyay waftigaasi gaarayay 100 kor u dhaafay qaarka dibadda ka yimid iyo qaar wadanka gudaha hore u sii joogay waftigaasi ayaa waxa aad iyo aad ugu soo dhaweeyay marti sharaf badan oo ka kala yimid kalka uu hogaaminayay madaxweynaha dowlad goboleedka deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Cumar iyo wakiilka xisbiga gudoomiyaha xisbiga Cabdi Fataax iyo mas'uuliyiin badan oo ka socotay federaalka wafdiga Mareykanka soo ka imaanay waxa ka horeeyay saddex qayb oo wufuudi geeska Afrika oo dhan Nairobi rag fara badan baa inooga yimid Mareykanka waxa ka soo horeeyay group nooga socotay Denmark Germany haddana waxa inala jooga Osaka xalay inoo yimid laba qayb ilaa saddex qayb oo ay Mareykanka yihiin oo ay ugu badan yihiin San Diego iyo Minneapolis هذا وحملنا لفتادي هذا كوريهان وحملنا وقتي أصلا سعتي سأن عاد هم باللوسو دوي وهذا عاد وخيام بدن هذا دوين تا وحوي هذا حتى حلا واحد مقلع التلفزيون يتوب حتى اللي سيداي يعني وربعين دار أو كسابسن سعدالله نبدأ يقاب كنود اللقاءاتي يفود سعتي وحملنا يا سو دوين في عم بدك كني يدك كنا كلام قرما سلة دوي تجيان horta wixii maanta ka dambeeyay waxa way howli baa inoo bilaaban doona hadda waxay ahayd soo dhaweyntii iyo bogaantii bay ahayd waxa inoo bilaaban doona shirkii baa inoo bilaaban doona oo shirweynihii waqti dheer inuu dhacal rabay oo soo noo dhicay waayay shirweynihii jabhadda ayaa qabsoomi doona insha Allah mar dhow meel fiican uu ka dhici doona go'aamo dhaxalgal uu ka soo bixi doona kadib shirkii shacabweynaha bilaaban doona ilaa adu shirkan ugu dambeeyo lagu kala saxiixan doona oo meel yani meel mugdi lagu kala saxiixan doona ayaa inoo imaan doona marka insha Allah taana waxa weeye waxa mustaqbal aan sugayno inoo dhacaan waftiga Mareykanka yimid waftiga Mareykanka yimid waxana loo soo dhaweeyay aad iyo aad u wanaagsan qalbi furi iyo waji furi iyo maanta gamca furan aad iyo aad u fiican goorma islada waftigu way ka qayb galayeen shirka waftigu hadda waa iska daba imanayaan marka maanta waxaan u maleyn bisha waa 24 wixii maanta ka dambeeya ay u diyaar garoobayaan inay hawsha ay bilaabaan قرب
quudiyo waxaad soo qabatay baan maanta qiirahayaa waxaad soo qabatay baan maanta qiirahayaa waxaad soo qabatay baan maanta qiirahayaa qadarin iyo sharaf wanaag baad ku qeexan tahay qadarin iyo sharaf wanaag baad ku qeexan tahay inaan